waxaa dib la isugu soo laabtay tartanka ugu xiisaha iyo xamaasadda badan xagga kubadda cagta ee Champions League khaasatan wareegiisa 16aad ciyaartii ugu xamaasadda badnaydna waxay ahayd tii ka dhacaysay maslaxadda riyada ee Old Trafford halkaasi oo ay marti ku ahayd kooxda Manchester United waliba United waa ay awoodi kari waysay in ay iska tiiriyaan xidigaha PSG oo waliba u sii jiisaya la'aan Neymar iyo Edinson Cavani Marco Verratti ayaana ku filaadayba mashquulinta labada tiir ee qadka dhexe kooxda Manchester United Nemanja Matic iyo Paul Pogba ma gabin kaalintiisii shaqo Kylian Mbappe lowtan qaab ciyaareed mucjiso wata ayuuna la soo baxay Angel Di Maria oo ahaaba mid ka mid ah tiirashii nuurinayay ciyaartii ka dhacaysay Old Trafford labada gool ee lagu xanshiriyay Manchester United iyada oo joogta maslaxadda riyada ee Old Trafford waxay PSG ay la timid qaybtii labaad goolka koobaadna waxaba daqiiqadii 53aad ugu shubay Kimpembe oo lugta la helay koora uu soo korosay Angel Di Maria He's gone all the way through and in and it's in by Kimpembe Manchester United totally switched off from the corner It was a simple tap-in for the French international, his first ever goal for Paris Saint-Germain on his 97th appearance for the club. It's an away goal. It's Manchester United 0, PSG 1. Toddoba daqiiqo kadib, Bononi uu si qurux badan ugu farsameeyay Angel Di Maria. Wuxuu dhaxkatuur wacan uu siiyay Kylian Mbappe. Halkaasina waxaba ka yimidba goolkii labaad ee kooxda Paris Saint-Germain. Mbappe going through the middle. Mbappe! Lovely. Faintest of touches. Second goal for Paris Saint-Germain. And it's the French wonder boy who doubles their lead at Old Trafford on the hour. Manchester United 0, Paris Saint-Germain 2. Lovely goal. kadib guuldaradii xalay waxayba u muuqataaba in ay soo idlaatay boodboodkii iyo bootadii badnayd ee macalimka reer Norway Ole Gunnar Solskjaer oo noqdayba mid xoog isaga qabsaday xagga horyaalka Premier League ee dalka Ingiriiska laakiin ma wanaagsana cimiladiisa xagga Champions League xaalka iyo rajaduna Real United waxaba ku sii xumeynayaba Paul Pogba oo loo taagay calaamadda gaduudan